kulanti wacan oo wanaagsan idin lahaantiinba saaxiibayaal ku soo dhowaada muuqaalkeenna maanta waxaynu kaga hadli doonaa sida loo noqdo qof han iyo himilo sare leh. maxaa keena inay dadka qaarkood noqdaan qaar hami sare iyo hiigsi leh halka dadka qaar kalena u muuqdaan qaar aan waxba danayn oo aan han iyo himilo toona lahayn? miyaa lagu dhashaa hamiga sare oo wuxuu xidhiidh la leeyahay qofka hiddihiisa, mise qof kastaaba wuu noqon karaa qof hami sare leh? muxuuse yahay farqiga u dhexeeya dadka hamiga sare leh iyo dadka caadiga? dad badan ayaa u malaynaya in hamiga iyo hanku uu yahay dabeecad ay dadku ku dhashaan, waxayna ka soo qaadaan in haddii aanay iyagu hami sare lahayn ay macnaheedu tahay inaanay u dhalan inay hami sare yeeshaan. taasina waxay sababtaa inaynay isku dayinba inay han sare iyo himilo yeeshaan. warka farxadda leh ee aan kuu hayaa wuxuu yahay in haddii aad fahanto sababta dadka hamiga sare lihi u noqdaan qaar hami sare leh, aad adna sidoo kale awoodi doonto inaad barato sida loo noqdo qof hami sare leh si lamid a sida dadkaasi u barteen. haddaba ka hor inta aanan habkaa kuu sheegin, ugu horreyn waxaad u baahan tahay inaad fahanto sababaha ka dhiga dadka qaar inay noqdaan qaar hami sare leh. waxaa jira dad badan oo taajiriin ah, islamarkaana haddii aad taariikhdooda dib u raacdo aad ogaanayso inay nolosha meel hoose ka soo bilaabeen, islamarkaana ay qaarkood ahaan jireen kuwo ka shaqeeya xamaal iyo inay dadka alaabta u qaadaan, ama ay qaarkood ahaayeen kuwo alaabooyin yaryar suuqa la wareega si looga iibsado. haddaba arrintaasi waxay keentay inay noqdaan dad hami sare leh, islamarkaana ay ka fikiraan siday naftooda horumar u gaadhsiin lahaayeen, ugana bixi lahaayeen dhaqaale yaraanta iyo shaqadan aadka u badan ee ay ka shaqaynayaan. waxayna ahaayeen qaar hamigoodu sarreeyo oo aan ku qancin nolosha aadka u hoosaysa, waxayna bilaabeen inay dhaqaalihii yaraa ee soo gelayay wax ka mida ay kaydsadaan, islamarkaana ay ku sameeyaan ganacsi yar oo iyaga u gaara si ay u gaadhaan hamigooda iyo himiladooda. dabcan arrintaa waxaa ku sababay cadaadiskii nololeed ee haystay. halkaana waxaa kaaga caddaanaysa in cadaadiska nolosha ee ay dadku galaan uu ku qasbo kana dhigo qaar han iyo himilo sare leh. si aad u noqoto qof han iyo himilo sare leh, waxa ugu horreeya ee lagaaga baahan yahay waa inaad naftaada cadaadis geliso. waa inay jiraan wax kugu riixaya oo ku cadaadinaya si aad u noqoto qof meel sare hiigsanaya. waxaa laga yaabaa inaad soo xasuusatay qof aad taqaano oo xaaladaa adag galay, balse haddana aan noqonin qof han iyo himilo sare leh. xaqiiqo ahaan dadka badankoodu cadaadiska nolosha way galaan, balse cadaadiskaasi kama dhigo qaar hami sare leh. sababtoo ah qofka cadaadiska haystaa si uu hami sare isugu beddelo waa in qofka laga helaa astaamahan soo socda. namber 1, waa inaanu qofku ku qanacsanayn xaaladda dhaqaale ee uu ku jiro. waa inuu qofku rabaa inuu xaaladiisa dhaqaale wax ka beddelo. waa inuu qofku rabaa inuu dhaqaale sameeyo xataa hadduu shaqaale yahay. waa inuu raadsadaa shaqo dhaqaalaheedu sarreeyo. namber 2, waa inuu qofku yeeshaa habfikir caafimaad qaba. ka waran hadday dadkaa taajiriinta noqday ay aamini lahaayeen inayna ka bixi karayn nolosha dhaqaalaheedu hooseeyo, islamarkaana ay ku qanci lahaayeen xamaalka iyo alaabtaa yaryar ee ay la wareegayaan? miyay samayn lahaayeen horumarka ay sameeyeen? maya, may sameeyeen, ee waxay ku jiri lahaayeen xaaladdaa dhaqaale ee aadka u adag. habfikirka aan caafimaadka qabin wuxuu dilaa xamaasadaada iyo dhiiranaantaada, waxaanu kaa hor istaagayaa inaad noqoto qof hami sare leh oo aamina inuu nolosha heer sare ka gaadhi karo. dadka hamiga sare lihi waxay aaminsan yihiin inay raja jirto oo ay gaadhi karaan hamigoodaa sare. namber 3, barashada xirfado cusub. qofka hamiga sare lihi wuxuu awood u leeyahay inuu xirfado cusub barto. ma noqon kartid qof hami sare leh haddii aad aaminsan tahay inaanay jirin waddo aad kaga bixi karto cadaadisyada nolosha ee ku haysta. inaad xirfado cusub barataa waxay kaa saari karaan dhibaatooyinka nolosha. haddii aanad lahayn awood aad xirfado cusub ku baran karto, waxaa kugu adkaanaysa inaad noqoto qof han iyo himilo sare leh. waxaana kugu adkaanaysa inaad hesho dariiqo aad kaga baxdo cadaadiska ku haysta ee nolosha. inaad barato xirfado cusub waxay kugu horseedi doontaa mustaqbal ka wacan kii hore, waxayna ku gelin doontaa rajo iyo hami aad u sarreeya oo aad dhab ahaantii ku gaadhi karto nolosha aad rabto inaad ku noolaato.
Nambar 4 qof geesiya noqo oo ku dhiirasho leh. Dadka hamiga sare leh waa kuwa aan ka cararin dhibaatooyinkooda ama aan isku dayin inay silowsiiyaan, balse waa kuwa qaata go'aan ay ku wajahayaan dhibaatooyinkooda. Dhibaatooyinkaasi waxay doonaanba ha noqdaane. Geesi noqo oo toos u waajah una xalli dhibaatooyinka ku haysta nolosha. Markaasaad noqon kartaa qof hami sare leh, hamigiisana rumeeya. Ugu dambayntii, hamiga sare waa guusha noloshaada iyo horumarka mustaqbalkaaga. fadlan aragtidaada nagula wadaag qaybta hoose ee kommentiga, kana mid noqo asxaabta ku xidhan Maamuusa Media ee ka faa'iideysta xogaha aadka u muhiimka ah ee aan soo geliyo barteena Maamuusa Media.